Suldaan Abu Sufyaan Maxamed Muuse oo maanta warbaahinta qaarkood kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa culimada Somaliland ka difaacay eedeymo ku aadanaa in bulshada uu ka soo jeedo aanay la dadaalin marka laga hadlayo yaraynta iyo joojinta arrimaha faquuqa ee lagu hayo bulshadaasi. Suldaanka ayaa iftiimiyey doorka ay culimadu ka qaadato wacyigelinta bulshada iyo isdhexgalka bulshooyinka laga tirada badan yahay iyo inta kale, waxaana uu fariimo isuwan u diray bulshada uu suldaanka u yahay iyo weliba hoggaanka bulshadaasi oo uu qaarkood tibaaxay inay wadaan howlgallo sasaantooda aan la mahadin. waxaan arkay iyadoo runtii aad culimada loogu celcelinaya carabka shakhsiyaadka qaarna la carabaabayaba sida Sheekh Barbaraawo oo kale. waxaan ku baraarujin lahaa runtii culimadu kaalin weyn bay kaga jiraan bulshada, waxay hayaan dhaxalkii Nabiga calayhi salaatu wasalaam, ixtiraam iyo qadarin baan inaga mudayn. culimadu marka la eego arrimaha guud ama dhaqamada liitay waddanka ka jira runtii si furan bay uga hadlaan oo qoto dheer, waxaana dowrkoodu yahay iyaga wacyigelin weeyaan iyo dadka inay diinta u sheegaan iyo shaygaasi inaanu bannaanayn. mana qabo caalim muslima oo Soomaaliya oo diin iyo alla ka cabsi lagu yaqaano oo aaminsan dhaqanka noocana jiritaankiisa ama inuu yahay xaq, taa runtii ma aaminsani. culimadu way ka hadlaan arrintan oo dee inta ku xidhan duruustooda iyo muxaadaraadkooda ee dhegaysataa runtii way ka hadlaan. intan xasuusta waxaa ka mid a Sheekh Maxamed Cali Garle runtii muxaadar uu galay baa la yidhaha musaawaat almuslimiin, waa uu ka hadlay Sheekh Umal Barbaraawo laftigiisa. ay culimadu marna si guud bay u hadlaan oo bulshada dhan bay la hadlaan, marna si gaara u hadlaan. marka intooda guud marka laga yimaado sida guud uga hadasha, in si gaara uga hadashana way jirtaay oo arrintan aada uga hadashay. waxaan u baahanay marka culimada in la dhiirigeliyo mooyaane hawsha ay wadaan la yidhaha labalaaba mooyaane, horta in la dhaleeceeyo oo la dhaliila inagama mudna. sababtan idiin sheegaya inta keliya dhaqdhaqaaqada runtii bulshadan ka tirsan iyaga laftigooda dee culimada la xisaabiyo cidda waxbartay waa culimadaasun. marka waxa weeye in la ixtiraamo culimada oo la qadariyo waa mid meesha ku jirta weeyaan, oo culimada aan lagu degdegin. bulshada aan ka soo jeednana aan culimada sawir khaldan looga gudbinin ayaa runtii uga digaya. waayo waxaan arkayay shakhsiyaad madax dhaqameedka ka mid ah oo aad moodo inay aada ugu degdegayaan culimada, oo hadalladooda markaad dhadhasantaa aad ka dareemisidba inuu aaminsan yahay culimadu inay cunsuriyin yihiin. taasina runtii mid waaqiciya oo meesha ku jirta maaha. culimadu waxa weeyaan inta badan dee waxay nagala hadlaan inaan diinta Ilaahay baranno, inaan kitaabka Ilaahay kor u qaadno, inayna wacdiyaan, inay wax inoo sheegaan, laakiin cidda la rabo inay ku dhaqantaa wixii loo sheegay dawa inaga. si kastana haddii wax lagugu sheego laakiin adigu aad isbeddelka la iman weydo oo wixii laguu sheegaya aad weeleen weydo, dee wacyigelintaa laguu soo jeediyey wax macnay samaynaysaa ma jirto. marka waxaan leeyahay war arrinku guurun inagagama xidhnaa. guur la-aanna idinma hayso, dumar la-aanna idinma hayso. xaqiiqada iyo halkaa arrinku yahay inaa waajahdaan baa muhiima. xaqiiqadu waxa weeye in inagu isbeddelkaan la nimaado, in inagu wax baranno, inaan inagu kor isu qaadno, inaan inagu dadaallo. hadalku wuxuu ku soo ururayaa inteennii baa hadhay, maaha inaan dadka ku galgalanno, aynu culimmada ku warwareegno maaha. waan idhahno culimmadii baa sidana, culimmadii baaba cunsuriyadda hoosta ka wada. waxaasi aan waxaan u arkaa inay edab daro tahay, deelqaafna ku tahay culimmada Soomaaliyeed runtii. war culimmada aan ka xishoonno. weliba madax dhaqameedka qaarkood oo aan arkayo barnaamijkaanu Fersal sii daysay ka qayb galay, mar kalena si gaara uga hadlay, waxaad moodaa inay aada ugu degdegayaan culimmada. ka xishood culimmada ka dambe. culimmadu way ka hadlaan, in badanna annaga aragnay oo ka hadlaya runtii arrintana ka damqanaya. adigu haddaadan culimmada dhegaysanin ama aadan muxaadaraadkooda iyo wacdigooda ku xidhnayn
ama waxa weeyaan aad maxay heetoy wax cilaaqaaba aadan la lahayn maha macnaheedu inaanay ka hadlin way ka hadlaan intii awoodoodana way sheegaan inay kordhiyaanna waxay ku xidhan tahay in adigu aad wax badan isla garab taagto in adiga laftigaaga waxa lagu sheegayaa ay ka muuqdaan. Suldaan Abu Sufyaan ayaa hadalkiisa ku saafmeeray duco iyo dardaaran ku kala aadanaa abaaro qaybo ka mid ah dalka soo food saaray iyo colaado laga soo warinayo qaar ka mid ah gobollada bariga Somaliland. Ilaahay waxaan ka baryaynaa sida khayr ku jira inuu waafajiyo in abaaraha jira Alle inaga soo jebiyo colaadaha inaga soo cusboonaaday deegaamada bariga ka bilaabmayna waxaan leenahay war caqliga ha shaqeeyo hal la joojiyo beelaha walaalay halka ku dagaalamaya maalmahan dagaal ka socdo iyaguna inay joojiyaan abaar baa jirta yaani colaad ku darsanin caqliga ha shaqeeyo oo walaaltinimadu ha shaqeyso oo islaamnimadu ha shaqeyso oo jaarnimadu ha shaqeyso oo waxa weeyaan dagaal khasaare mooyaan wax faa'iido keenaya ma jirtee war caqli ha lagu daraban lahaa